aad buu ugu mahadsan yahay cilmi baare Axmed Aadan sida waafiga ah ee uu inoogu faahfaahiyay nuxurka ku jira miisaaniyadda. Axmed inta aanan u gudbin panelka iyo sidoo kale ka soo qaybgalayaasha balada waxaan doonaynaa inaan ku yara noqono nuxurka aad soo bandhigaysay waxaad sheegtay sanadkan in dhaafay 2024 in burco laga dhoofiyay 3.8 milyan oo neef taasoo ka dhigan in boqolkiiba 75 xoolaha la dhoofiyay ay ka soo jeedaan Sool, Sanaag iyo Togdheer. maxay taasi ka dhigan tahay oo macnaheedu tahay marka loo eego sidee wax uga soo baxaan ama wax dawladdu uga samaysaa ma naqaanaa tiradii ka soo xarootay sanadka 2024 waxaa ku taala ama miisaaniyaddeena ku taala in 4 milyan oo neef la dhoofiyay sanadkii 2024 haddii markaa inta la dhoofiyay boqolkiiba 70 ay ka soo baxaan gobolada bariga ee uu ka mid yahay Togdheer ee uu ka mid yahay Sanaag ee uu ka mid yahay Sool production hadda ay soo saaraan waxyaabaha ay soo saaraan goboladaasi weeyaan xoolahaas meesha ka yimaadaan waa area-daas laakiin nasiib darro iyaga laguma cashuuro cashuurta waxa lagu qaadaa gobolka Saaxil marka ay dhoofayaan baa la qaadaa oo customs-ka qaada waayo haddii halkan lagu qaadayo halkan lagu cashuurayo dee toos bay xooluhu inta halkan lagu cashuuro ayay boqolkiiba 10 dawladda hoose heli lahayd oo customs-kaas xoolaha la cashuuray boqolkiiba 10 dawladda hoose burcane heli lahayd gobol ahaanna waxa la oran lahaa marka lagu dhufto 4 milyan boqolkiiba 10 ay qaadaan neef kasta oo xoolaha dhoofaya sida ku taala xeerka customs looga lagu cashuuro kastamada boqolkiiba 10 marka hore neefku wuxuu ku qiimeysay $100 kadibna boqolkiiba 10 bay dawladda cashuurtaa marka waxa noqon lahayd 4 milyan haddii la cashuuro oo boqolkiiba 70 lagu dhufto lacag 3 milyan ay gobolka Togdheer heli lahaa ama gobolada bariga ay heli oo ah xoolihii dee ka soo baxay halkan laga dhoofiyay laga kaxeeyay maxaa kaga soo xarooda hadaba gobolkan maxaa saddexdan gobol maxaa miisaaniyaddii 2024 ama miisaaniyaddan 2025 maxay ku soo celisay saddexdan gobol miisaaniyaddan aan arkaynay sida aan barnaamijka ku jeedinayay ma goboleysna horta marka hore ma aha mid goboleysan oo gobolkaasi waxa loo sii daayo ama uu helo lama yaqaano taasina waxa weeyaan waa decentralized ama waxa maamul dadji wax la yiraahdo ayaan jirin haddii markaa maamul dadji lahayd waxa la garan lahaa wixii halkan lagu soo celiyay ama loo soo transfer gareey baa la garan lahaa laakiin lama yaqaano waa centralized gebigeedaba waxa weeyaan maamulkiisa iyo arrintiisa iyo cashuur qabashadeedaba waa dawladda dhexe iyagaana markaa meeshii la geenayo yaqaano markaa kuma cadda su'aasha u dambaysa Axmed markaynu leenahay maamulka hal la daadajiyo ama miisaaniyadda dakhligeeda hal la daadajiyo ama bixinteeda kharash gareynteeda hal la daadajiyo maxaa loola jeedaa maamul daadajintu waxa weeyaan in maamulkii iyo maxaa la yiraahdaa shaqada la qabanayo haddii noqonayso cashuurtii la qabanayso adeegii la qabanayo dhammaanba inay degmadooda maamulkaasi ay u madax banaanaato oo ay iyadu hawlaha ay qabato isla markaasna marka ay qabtaan cashuurta ay qaadaan dee adeegooda iyo maartay waxay u baahan tahay in la sameeyo markaa bilmatal waxay u baahan tahay sida ku taala dee maxal dastuurkeena uu sheegayo waxa loo baahan yahay maamul daadajin horta maamul daadajintu aad iyo aad bay muhiim u tahay muddo badanna waa laga soo shaqeynayay waxaa jiray mashaariic fara badan oo maamul daadajinta oo culays badan lagu saaray dawladaha hoose lafteeda matalan maxaa laga sameyn karaa hadda ahaan si cashuurta ama dakhli sameynta cashuuraha loo daadajiyo dakhliga sameyntiisa ama kharash gareynta loo daadajiyo talaabada ay tahay in la qaado maxay tahay talaabada ay tahay waxa weeye in la qaado waxay tahay waxa weeyaan gobol walba wuxuu doortaa baarlamaan wuxuuna baarlamaanka u matalaya ayaa jira marka kuwaas ay in xisaabta u daba galaan oo ay gobolkii wixii u soo baxay u daba galaan oo gobolkeed wixii u soo baxay maamul daadajintii arrimihii wixii sababta loo daadajin waayay ay la xisaabtamaan dawladda dhexe kuwaas ay tahay in daba galaan maamul daadajinta marka ay halka ka howl galaan weeyaan oo halka laga shaqeeyo aad iyo aad baad mahadsantahay Axmed bal waxaan doonayaa hadaba inaynu isyar weydiino in badan waxa laga hadlaa wadarta guud ee wax soo saarka ama GDP-ga oo ah waxyaabaha lagu cabiro kobaca ama awoodda dhaqaale ummaduhu ay leeyihiin miisaaniyadda amkeedana hor taala wadarta guud ee wax soo saarka Somaliland waa 2
4 bilyan oo dollar sidoo kale dhanka kale marka laga eego waxaynu hadalkeena ku celinaynaa oo ka sheekeynaa miisaaniyad bal waxaan doonayaa Yusuf inuu inoo kala saaro maxay tahay wadarta guud wax soo saar ee umadeed iyo miisaaniyadda ummaddu ay leedahay maxay kala yihiin ma rabaa inuu si kooban oo aynu u wada fahmi karno inuu ugu sheego labadaasba waxay cabiraan noocyo kamida garanaysaa dhaqaaluhuna asaliyan waxa weeye waxyaabaha qofka aadamiga ahi uu maalin walba la daris yahay marka subaxii soo kacda wax iibsanaysa aad tira waa imisa waxaas macnaheedu waxa weeye arrin dhaqaalaad ka hadlaysa markaynu u soo noqono GDP-ga waxay u taagan tahay gross domestic product waxa weeye af Soomaali marka lagu macnayo waxay noqonaysaa wax soo saarka wadan xuduudkiisa ka soo baxa oo waqti go'an leh waa inta badan waa sanad wax soo saarka waxa la isugu geeyaa dhammaan wax soo saarkii oo dhan waxaana uu ku qiimeysan yahay lacagtiisa marka wax soo saarka markaan leenahay waxaan u jeednaa midna xoolaheena hadii geeleenu geel dhalo oo kale geela dambe ee soo baxay baa la xisaabinaya maxaa lagu xisaabinayaa suuqa inta uu ka joogo waxa soo dhan baa la isu geynayaa inanta subaxii la xooxda dubtaa la xooxdaas waa production kaas waxa weeye value added buu noqonayaa ama waxa weeye waxa ay inantaas ku kordhiso marka waxa soo dhan baa la isu geynayaa waa maxay waxa weeye all total monetary value in the market taas waa maxay waa GDP-ga national budget ama budget marka laga hadlayo waxa weeye dakhliga dawladda soo gala iyo sida uu bixisay sida aynu u naqaano laakiin national budget ku waxa weeye more broader sense uu leeyahay waa maxay waxa weeye wuxuu determine garayaa ama wuxuu hagaajiyaa national priorities dawladdu ama wadanku markuu isu yimaado dana ma leeyahay mustaqbalka ujeedooyin ma ka leeyahay iyo economic goalska marka miisaaniyadda haddaynu si yaro fudud dadka uga sheegno macni waa qayb kamid ah wadarta guud wax soo saarka oo dawladdu urursanayso ay wax ku qabanayso markaan labadaa kala saaro GDP-gu wuxuu noqonayaa dakhliga soo gala dadka oo dhan ayuu noqonayaa budgetkuna wuxuu noqonayaa dakhliga dawladda soo gala saasuu noqonayaa waa qayb yar oo kamid ah dawladdu baa qayb yar ka soo qaadanaysa soo saarkii guud aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan u gudbayaa Cabdisamed Libaaxo isaguna imika ah hormoodka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Burco marka laga sheekaynayo Yusuf sidoo imika inaga warramay wadarta guud wax soo saarka wadanka ayuu ka warramay marka bal waxaan doonayaa Cabdisamed inaan weydiiyo horta maxaynu ku garan karnaa in halkan wax laga soo saaro gobolkan Togdheer ama gobolka Sool ama gobolka Sanaag waa maxay indicatorska aynu hayno ee aynu ku qiyaasanay waxa la afka qaraad lagu dhaha main economic indicatorska gobolkan ama saddexdan gobol yaala maxay yihiin si yaro kooban ma noogu sheegi kartaa Cabdisamed tusaale ahaan boqolkiiba 85 baa marka dhoofka qura la qaato la yiraahdaa sanadkan oo kale hadii aynu eegno fikradii u dambeeyay sheegayaan in ay 85% foreign export lacagta aynu ka helno inayna soo geliyeen xoolo that means wadan kasta waxa uu ku daalaa waxa uu dibadda u dhoofiyay iyo in ay isleekaadaan waxa wadanka soo gelaya lacag ahaan hadiyo goor stability-ga price-kana waa ta jaangoyso marka lacagteena waxa ugu weyn ee aynu sixir bararka kula dagaalanaa inta ugu badan waa lacagta shilinkeenuna wuxuu kor u kacaayo oo sixir bararku ina saameeya marka hadiyo goor arigaas istaagay lacagta adaga inaga soo gelaysa ariga ay gaabiso waa meelaha ama hadiyo goor oo mararka uu dollarkeenu sare u kaco taasi waa hal indicator weeyaan oo marka la eegayo lacagta adaga inaga soo gasha marka la eegayo xagga employment-ga waa sectorka ugu badan ee employment-ga guud ahaan wadanka oo dhan haddii si gaara loo soo qaado gobolkana ratio-daasi way sii kacaysaa oo 70% hadduu employment-ga wadanka ka yahay gobolkan wuu ka sii badanayaa
employmentigu inta uu ka yahay aggregate-ka waddanka marka la qaato hadii goor region haddii loo sii eego halkan waxaad boqolkiiba 70 buu shaqo abuur u abuuraa boqolkiiba 70 ayuu guud ahaan waddanka ka yahay in uu source of employment uu yahay laakiin haddii gobolkan la sii qaado figurkaasi inta uu ka sii sareynaya waayo theory ahaan haddaynu qaadano gobolkan inuu gobolada kale kaga maaragtay badan yahay xagga wax soo saarka xoolaha figurka uu sii badan laakiin average-ka marka goboladana la isu daro ayuu 70% ku soo dhacaya marka qodobka labaad waxa weeyaan waa source of employment xagga kale marka laga eego GDP-gan aynu sheegaynay guud ahaan waddanka 60% wax ka sareeya ayuu noqdaa ama figurateku inta badan sanadba uu isbedelaa hadday 60% qaadano boqolkiiba 60 buu ka yahay wax ka badan ayuu GDP-ga uu ka yahay marka haddaynu gobolkan gaar u qaadano macnihiisu oo aynu 60-gaba qaadano macnaheedu waxa weeye 60% baynu GDP-ga waddanka ama wax soo saarka guud ee waddanka aynu contribute karayna way halka igu jawaabsan waxaan doonayaa abal Axmedow haddaad miisaaniyadda dib ugu noqotay qoondada looga diyaariyay miisaaniyadda xanaanada xoolaha darajadeebay matalan kaga jirtaa haddiiba ay qoran tahay sidaad sheegtay miisaaniyaddu ma gobolaysna way wasaaradaysan tahay haddiiba la eego wasaaradaha lafteeda halkeebay kaga jirtaa inteebaa se ugu jirtaa qoondada budget line-ka ama inta halkee ugu jirta xagga wasaaradahaana waa 8 marka wasaaradaha loo eego waxay kaga jirtaa lambar 11 ay noqonaysaa liis 11 bay kaga jirtaa 11 marka loo eego ay kaga jirto total ahaana waxay tahay 4 milyan ay loo qoondiyay miisaaniyadda qaranka oo marka horena guud ahaana ah 460 iyo 556 miisaaniyadda guud qaranka hase yeeshee 40 milyan ee la qoondiyay laftigeedu waxay ku baxdaa oo ay u badan tahay inay ku baxdo gobolada galbeedka sababtuna waxa weeyaan haddii wax shaqo la qabanayo haddii wax la qabanayo waxa dhan waxay shaqada wasaaraddu waxay tahay dawladda dhexe waxay shaqadeedii oo barashkeedu ka socdaaba Hargeysa statistics-ka intee in baa la verify garan karaa la isku halayn karaa de kulay waxa weeyaan de marka de geography loo eego meesha iyo maxaa la yiraahdaa xoolaha laftigiisa marka eegto waxay de kulay u baadhis dheeraada iyo cilmi baadhis inta ka sii badan bay u baahan tahay laakiin muuqaal hadda imka eegto wax lagu qanci karayo weeyaan waxaan rabaa inaan soo gudbiyo aad bay u mahadsan yihiin soo bandhigaha iyo falanqeeyayaashu waxaan rabaa marka inaan soo wareego dhinaca ka soo qaybgalayaasha haddii ay ra'yi ku darayaan iyo haddii ay su'aalhayaan saddex dhinac baan ka qaadi doonaa marba saddex su'aalood baan qaadi doonaa hadday si guud u sheegayaan iyo haddii ay si gaara cid ugu address garaynayaan su'aashoodana xor bay u yihiin kulley waxaan ahay sarkaal ka socda wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ma la odhan karayaa waxa sabab u ah oo aasaas u ah in horumarintu ay gaari waayaan xeerarka waxa weeyaan dee jira ee caqabadda ku ah taasoo qodob kale GPD-ga marka la eegayo ama waxa weeyaan dakhliga guud ee Somaliland soo gala marka la qiimeeyo sida ku cad Somaliland figures-ka buuga sheegaysay oo xarunteeda taala 2022 ilaa 23 waxa u dambeysay 3.3 bilyan waliba dakhliga marka la eego dadka waxa la yiraahdaa marka gaar loo eegayo dadka waxa soo gala 700 ilaa 800 dollar ba qofkii cala gaar marka la yareeyo weey waa sida ku cad weey marka dakhliga waxa sabab u ah ma la oran karayaa waxa sabab u ah xeerka aynu ka tilmaanay ah maadaama wada xoolihii nool waxa wada loo firin su'aashayda koowaad waxa weeyaan qoondooyinkii ama miisaaniyadda ma jirtaa sanadkan wax loo qoondeeyey gobolladii bariga waxaan u jeedaa degmooyinkii sool bari iyo buuhoodle miisaaniyaddan wax qorshe ama maxaan dhahdaa ma loogu talagalay haddii aan loogu talagelin xaggee loo wareejiyey su'aasha labaad waxa weeyaan cisbitaalka burco culaysyo dhaqaale ayuu baryihii u dambeysay la daaladhacay sidaynu ognahay oo ay keentay dagaaladii bariga ka dhacay dagaalkii laascaanood iyo intii ka dambeysay dagaaladii kale faramaha ka dhacayay culays dhaqaale miisaaniyaddu ma ugu tala gashay maxaan dhahdaa wax ma ugu tala gashay
ay ku yaraynayso culaysyada ama qoondooyin cisbitaalka burco gaar ahaan loogu talagalay ma ku jiraan miisaaniyadda waa mahadsantihin waxaan qabaa magaalada burco caqabadaha haysta haddaan commentiga ku horeeyo wax ka mid ah caqabada sharci baa ka mid ah oo kaga imanaya xeerka kastamada iyo xeerka ay isku maamulaan dowladaha hoose iyo degmooyinka lagu maamulo iyo gobollada baan leeyahay marka labada waxay ugu waaweynee burco soo galaan arkay ayna cashuurba ku lahayn qashinkeedu u yimaado wax ka mid ah xoolaha sanadkii lagu iibsado iyo qaadka maalinlaha lagu isticmaalo labadaa midna waxba kagama soo noqdaan taas waa taa marka su-aashayda haddaan gudbo waxa weeye dowladda hoose oo kale kabka dowladda dhexe kaga yimaada iskaba koobnaadee I think inuu $1 milyan yahay sanadkii kaasoo kale dowladdu ma u bedeli kartaa mashaariic muuqda oo ay soo daba gasho dowladda hoose waxay magaalada burco gudaheeda kala soo baxdo ee cashuur ay ka urursato dee expense-keeda maalinlaha ku bixiso laakiin wixii dowladda dhexe ka imanaya ma loo bedeli karaa dowladda hoose ma soo qoran kartaa mashaariicda priority-ga ah dowladduna hadhow si accountability-gu fududaado oo hadday waddo ku bixisay hadday xanaano ku bixisay saasoo kale su-aasha labaad waxa weeye 2% baa jira gobollada bari lagu talagalay lacagtaasoo marka lagu dhufto miisaaniyadda guud $8 milyan aan ka yarayn lacagtaa gobolladii bari ma la siinayaa oo ay maanta ugu baahi badan yihiin waad mahadsantihiin su-aashaas waxay ahayd mushkiladda xoolaha dhoofintooda mar baan la sheekaystay nimankan xoolaha dhoofiya marka waxay ugu yidhaahdeen problemka ugu weyna xoolaheennu waxa weeye maraakiibta lagu qaado oo waxay yidhaahdeen maraakiib daashay baa timaada in badan bay badda ku jiraan dabadna xoolaha miisaankooda yaraada haddii 4 bilyan baa la sheegay inay wasaaradaba budgetkeedu yahay haddii budgetka la kordhiyo sida ku qornayd wararka aynu helay waxaa ka mid ahaa livestock sector-ku wuxuu employ garayaa 70% lacagta dibadda inaga soo gashana 85% bay ayay keentaa marka labada markaad eegto dee dhaqaalaheenu wuxuu ku fadhiyaa cashuurta beeruhu waxay ka noqdeen ba wasaaradda baan filayaa in ahayd meel aan eegay wasaaradda industry-ga waxay tiri 20-25% baa dadka beeraha ku tiirsan bulshada marka la eego dee dhaqaalaheenu wuxuu ku fadhiyaa xoolaha mar hadduu ku fadhiyo waxaa la doonaya in lacag badan la geliyo xoolaha xagga security-ga waa qayb ka mid ah waxay maraakiibta dee casriga ahi waxay u baahan yihiin damaanad marka waxa soo dhimo wax laga shaqeyn karo haddii investment la geliyo mid ka mid wuxuu weydiiyay cashuurta kuleynta gobolada bari oo ka mid ah miisaaniyadda qaranka horena ugu jirtay imikana ku jirta cashuurtaas waa la qaadaa sanad walbana miisaaniyadda way ku jirtaa laakiin mar qudhamaynaan maqal cashuurtii gobolada bari lagu talagalay ee lagu horumarinayay ayaa wax mashruuca noocaas lagu qabtay meel ay ku qaranaysay meel lagu qabtay meel lagu soo bandhigay ma jirto marka taa waxay ahaan lahayd in ka joogto wasaaradda maaliyadda oo bal halkaas cashuurta halka la mariyay miisaaniyadda halka la mariyay sanadkana way ku jirtaa in taas ay horta in ka joogto waxa kale oo iyada jirta marka miisaaniyadda saa u sii eego miisaaniyadda dhinaca barigaan isha yara mariyo waxa jirta cashuur la saaro shidaalka ka soo gala gobolada bariga dhinaca kale haddaad galbeedka eegto lama saaro oo kuma jirto laakiin miisaaniyaddan iminka aanu hayno ee 2025 waxa jirta cashuurta la saaro shidaalka ka soo gala xadka gobolada bariga haddaanu imaata caafimaadka sidaan ka warhayno cusbitaalka burco wuxuu arrin faraal buu ahaa wuxuu ahaa haddii wixii dagaalkii oo ka dhacayay wax kastoo dhacayay waxa la keenayay meesha la yidhaahdo burca la keenayay laascaanood iyo xagga dhaawacyada waxa la keenayay halkan waana meesha laga soo gudbinayay ti markaa wax keentay in culays dhaqaalo aad iyo aad u fara badani uu yimaado gobolkii isla markaasna ay bilaabanto deyni marka maalmo inta lix qof intaasoo dhaawaci la keeno xaaladahoodii critical yihiin taasina waa keentay markaa in deyn maanta uu dhakhtarkii naga xidhan yahay oo aanu shaqo u shaqeynayo macna la'aan jirin taasi wata saameyntaasi si kale inoo saameyso degmada laftigeeda dhaqaalaheeda hoos u dhacay goboladii bariga ku xidhnaa xooluhu ay u gudbi lahaayeen ama socodkiiba isaguna xidhmay taasina waa tahay qayb ay ka tahay in dawladda hoose burco la yiraahdo maanta deyn baa lagu leeyahay oo taasina waa qaybta labaad marka horta intaasaan ku soo koobayaa haddaan eega xagga xeerka in halka xeerku taabtay waa xeerkaas waxa filaya inuu jeedo xeerkii loo jeedo xeertu alif xeerka midanta cashuuraha
waxaa la sameeyey 2002 baa la sameeyey markaa kaas sidii caqabadihiisa iyo ciladihiisa horaa looga hadlay doodo hore oo kalena waa laga galay laakiin wax laga bedelay oo ilaa hadda macna loo ka jira ma jiraan markaa kule caqabadahaasi waa caqabado jira iyaguna waxaan idin weydiinayaa miisaaniyaddana falanqaynaysa waa 25 waana dhaqangalo maxay ahayd waa lagu shaqeeyaa dawladdu dad taasay ku shaqeysaa marka outcome-ka imaka ka doonaysaan falanqayntani ma waxa weeyaan in wax laga bedelo miisaaniyada 27 iyo kuwa soo socda way tan already waa dhaqangalo waa lagu shaqeeyaa baasheeda labaad waxa weeye waxay ku salaysan tahay institutions ama wasaaradda ha noqoto ama hay-adaha kale dawladda ha noqotee systemka decentralizationku wuxuu ku habboon yahay in gobollo lagu saleeyo regional wise sidaasaad moodaa in ay dalka ku wada gaari lahayd oo ay ma garanaysaa ay dee waddankuna isu miisaamin lahaa way miisaaniyaddii imaka waxaa laga yaabaa haddii 2 qaybood loo kala qaado oo qayb ay tahay maxay ahayd ay tahay expenses ama expenditure ay u badan tahay kharashkii dawladda ama mushahar ama running cost kale ha noqoto waxaba kolley dee idinka buuggana maan akhriale ahaado ay lagu isticmaalo caasimadda iyo xarumaha wasaaraduhu ku yaaliin iyo degan tahay oo gobolladii kale aan waxba ka gaadhin developmentka laftiisii qaybtii developmentka haddii wixii yaraa developmentka ugu jiray laftiisa waxaan filayaa inaanay si fiican u gobolaysnayn marka ma laga systemkan iska ku salaysan oo ma loo wareegi karaa system gobolla ah gobol waliba inuu miisaaniyaddiisa diyaarsado hadday tahay expenditure iyo hadday tahay development labadaba su-aasheeda saddexaad waxa weeye مثلا dakhliga kastamada ka soo xarooda ama custom duties income-ku revenue-gu miyuu xidhiidh la leeyahay gobollada ma wax gobol ka soo baxayba yani مثلا waxaa jira in la yidhaahdo oo xeerarka ka mida xeerarkaa la tilmaamayay degmada custom ku yaallo gobolka xataa ma aha degmada custom ku yaallo customkaasi lacagta uu qabto 10% ka mida waxa la degmada kastamadina waa meelo maxduuda waqti baan xusuustaa la weydiiyey wasiirkii maaliyadda hore Dr. Saad la yiri lacagta ay degmadu iska qaadanaysaa maxay tahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay wax royalties iyo wax la mid ah yani wax degmadani ay xaq u yeelatay oo production ay soo saartay ma waxaan u jeedaa income ay soo saartay marka customisku waxyaabaha ay qabtaan ma income ba internationally iyo caalamkaba ma income degmadu soo saartayba ama ma khayraad degmada ka soo baxayba su-aasha koowaad aan weydiinaya cabsida waxa weeye falanqayntan iyo soo koobidan lagu sameeyey miisaaniyadda kolley waxa muuqda goldolooyin badan ama waxyaabo failures baa ka muuqda waxyaabaha ka muuqda maxaad ku talin lahaydoo dee si wax effective uga soo baxaan miisaaniyadda maxaad ku talin lahaydoo dee lagu daro miisaaniyadda ama si ay wax successful u noqoto su-aasha labaad waxa weeye waxaa ka muuqda sidii lasoo bandhigayey bandhigii uu sameynayay Axmed Ibraahim waxyaabo dee gobollada bari dee wax aan u qalmin oo kale iminka 330 milyan ay helayso inay 4 milyan ka hesho 4 milyan ay ku baxdo gobollada galbeedka waxyaabahaasoo kale maxaa sababay aad u malays maxaa gundhig u ah miisaaniyadaha marka la develop garaynayo had iyo jeer gobollada bariga waxay ka tirsadaan in miisaaniyadahaani aanay ka turjumin horumarka gobollada bari maxay yihiin qaladaadka soo noqnoqonaya ee miisaaniyadaha qaranku leeyahay aanay uga muuqan mashaariic horumarineed oo laga fulinayo gobollada bari halka ay ka muuqato mashaariic horumarineed
oo laga fulinayo gobollada galbeedka qodobka labaad productionka marka laga hadlayo wax soo saarka waxaan filayaa haddaan qaldayn 2% waxba pointiya dheeraa ma jiraan indicators la isla garanayo oo lagu cabirayo 2%-ga soo baxay xagga wax soo saarka iyadoo laga arkana inuu aad u hooseeyo soo bandhigistaana soo bandhigayna horta miisaaniyadda ee falqaynteeda aanu soo bandhigayna waxa weeyaan inay bulshada ogaato oo bulshada laftigeedu dee ay ogaato xaaladdu siday tahay oo ay xog helaan oo xog ay helaan oo ay ku filan helaan sida ka warqabtaana miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay buugta waxa labada abay ka kooban tahay isla markaasna waxaan ku soo koobnay buugga ay arkaysaan haddaba haddii aan eegno miisaaniyadda outcome-ka waxyaabahan ugu muhiimsan doonayna inay ka soo baxaan miisaaniyaddan hore waa iska qaybaysan tahay yacni waxa weeyaan waa human resource baa ku qoran operation baa ku qoran hawl socodsiin wax noocaas ka qoran caqabadaasi waxaan kalena aaminsanahay in dawladdu hoose burcana si gaar ah u haysato xilliga 2012 markii xil wareejis la sameynayay 240 ayay shaqaalo ahaayeen halkaas marayeen maantana 1000 iyo sayid bay marayaan waana ta keentay 5 milyan ee dawladda hoose burco miisaaniyaddeeda ku jirta 2 milyan oo ka mid inay yihiin mushahar shaqaale oo markasta uu maartay shaqaale office staff inay jiraan waxaan halkaa ku sii dar lahaa haddii aad u fiirsanayseen soo bandhigistii oo cilmi baaris sameynayay ujeedada laga leeyahay wacyigelintan waxa weeyaan miisaaniyaddan way dhamaatay waa run laakiin miisaaniyada kale la sameyn doonaa sanadkan soo socda imka qorsheedii la bilaabaya marka maxaa uga qorshaysan gobolada gaar ahaan xildhibaanadooda iyo hogaamiyayaashoodu inay tagaan caasimadda xafiisyada ay khusayso wasaaradda maaliyadda madaxtooyinka aanu gudbo isoo si yaroo kooban haddaad u taabato cabdilaahi wuxuuna weydiiyey ma loo bedeli karaa hanaankan cashuurta loo qaado mid gobolaysan su-aashaasi waxay xidhiir la leedahay xeer 12 axmed sharaxayay inankaasina ina weydiiyey marka waxaa jirta fahan la'aan ku saabsan center collection cashuurta meesha lagu qaadayo iyo cidda cashuurta bixinaysa haddii uu yidhi wasiirku loyalties bay leeyihiin waxay u eg tahay inay iyagu cashuurtan bixinayaan cashuurta waxa bixiya nin la yidhaahdo end user qaadka lagu cashuurayo kala baydhka markuu burco yimaado ninka ku qayilay baa ayaa cashuurta xagga lagu qaada bixiyey marka meeshaas waxay ahayd collection center bay ahayd laakiin cashuur bixiyayaal may ahayn sidaasoo kale xoolahan berbere ka dhoofaya ee berbera cashuurtii loo wareejiyey waxaan waxay ahayd siyaasad waqti hore dhacday oo haddaynu ka eegno xagga wadaniyadda waqtiga xilligii cigaal duruufaa jiray marka way habboonayd sidaa laakiin dee ninkii xoolahan lahaa ayuunbay haddana ka imanaysaa oo ma garanaysaa haddaan dee xoolahaasi jirin may bixiyeen marka ama regional ha laga dhigo ama waxa weeye sidan ay taha loo qaado dawladda waxaan ku shaqadali waa maxay waa central government kuma aha inay gobolada u kala xado waayo waa central ma aha inay local government noqoto talabaad su-aasha uu faad keenay ah maxaa cabashadan soo noqnoqotaa maxay tahay waxa weeye khaladka waxa iskale nimanka baarlamaanka ugu jira gobolada bariga ayaa khaladka yeelanaya qayb ahaanna waxa yeelanaya dadka intellectualka iyo baamushtarka gobolka degan marka waxay ka timi ma garanaysaa marginalization bay ka timi in dadkii dee ma garanaysaa caasimadii afrikaanka ku ururay sidii hore ay ahaan jirtay in ay noqoto marka waxa lagu sixi karaa ama central government inay si sax ah u shaqeyso ama nin waliba wixiisa dee inuu dacal ku dhago yiraahdo kan anaa wax ku lahaay maxaan ka qaadanaya arrin baa jirta marka laga tago cashuurahan goboladu waxay si makasii dheeriin dooda ugu badan muddadii ugu dambeysay ka taagneyd 10%-gan hadiyo goor lagu qabanayo point cashuurta lagu qabanayo marka laga tago arrinta meesha taale miisaaniyadda isla khuseysay waxay ahayd participatory-ga in wixii dambe horta participatory-geeda la saxo qodobka hadiyo goor marka la eegayo hadafyada kuwii aynu ka hadafyada marka la eegayo miisaaniyad loo qaadayo ee ay dawladdu u qaadayso marka aynu ka nimaadno macroeconomic indicatorski halkaynu ka sheegaynay qodob waxa dawladda sideedaba ay cashuurtu ka turjumaysaa oo miisaaniyadii ay u taagan tahay inay dhinto inequality-ga iyo regional disparity-ga
وأهداف تواوين أما تيرر كواوين ميزانية أي كنت أجنتها inay dawladdu dhimayso inequality-ga maaragtay gobolada dhexdooda iyo dadka dhexdooda within the citizens dooda badaniba way taagan yihiin oo imaka leerarka iyo arrimaha lagaga hadlayo iyo monopoly-ga laakiin marka la eegayo inay goboladu kala tagaan oo resource-kii la yiraahdo gobolkana resource badani ka soo baxaya kana fogaado kuwii kalena marka la ilaawo haddii 10%-ga maba xuma 10% haday gabiilay qaadanayso ama ay qaadanayso berberi qaadanayso ama caynabi qaadanayso laakiin muhiimaddu waxa weeyaan intan kale marka development mesela la eegayo development-ka marka la eegayo allocation-ki iyaga haba noqdaan intan ay soo saareen hal looga qoondeeyo wixii horumar laga sameeyay laakiin waxa haydin wixii kale ee soo baxay waayo dakhliga dawladdu uu fara badan yahay ilaha uu ka soo baxayana uu badan yahay qaar aan kuwan soo marin intii kale dee lagu qoondeyntii lagu saleeyo oo marka halkaas laga ay projects-kii la isu balance gareeyaa waa meelaha marka ay muhiim ka tahay waxaan u baahanahay imika waxa weeye 26 in looga diyaar garoobo baarlamaankan aynu hadal haynaana ee talaado waxay ku yaqaanaan duuduubaan ku ansixino oo maalinba inta joogtay maxaafidka ah ayaa duuduub ku ansixisa hoos looma eego imika xoolahaynu ka hadlayno xooluhu halkuu ka soo baxay dhaqaalaha quraynu leenahay wax aynu ku dhoofino iscir baraynu kula dagaalami karaa waxa weeye baalaha bari ka yimaada xabka iyo xoolaha nool xoolihii noolaa ma muuqato wax lagu soo celinayo wasaaradda xanaanada xooluhu waxay qaadaa talaalkan qaala bixisa beerneemkana bixisa maxay nagu soo celisay iyadu neefkii noolada dawladda xukumay soo celin ama tan noqoto ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa dambe imanaya ha noqoto wax allaale iyo waxay soo celisaa oo neefkii noolaa ku soo celisaa ma jiro waa mid miisaaniyadda marka la samaynayo ee dadku argayso wada tegi maayaan waxaa haddii maamul daadejin la sameeyo tusaale ahaan xanaanada xoolaha ka hadlaynaa waxbarashada ka hadlaynaa caafimaad baynu ka hadlaynaa miisaaniyadda ta ugu jirta waxay gobolada in la yiraahdo soo samaysta oo gobol waliba markuu samaysto miisaaniyadiisa wasaaraddiisa u diro dabeetana qaranka ay soo gasho hadhowna uu ku soo noqdo gobolkiisa isu dawayaasha imika 5 litir male xagee kormeeri xagee tagi maxay ka shaqeeyeen de wasaaradda wasaaradda lagu isticmaalaa Hargeysa ama mushaar ka dhigto ama stationeer ka dhigto ama shidaal ha ka noqdo ama sida halkaas lagu la baxa 10 milyan marka meesha dhibaatada taala waxa weeye maamul daadejin baan jirin miisaaniyadana ilaa maamul daadejin laga sameeyo waxba ka qabsoomi maaya qodob labaadna wuu jira inagu waxaynu ka hadlaynaa maxaa inaga qadiyay mashaariic maxaa inoo diiday waxa dheeray ninka u dhow baa lafta kala baxa ninka mashruuca qaadanayaana ma ogola inagu waxaynu u baahanahay had iyo jeer laga hadla sinaan iyo cadaaladu dadku wada doonay sinaanta dadku ma ogola tusaalahan burca haddii aanay mashaariic ba lahayn oo Hargeysa mashaariic leedahay oo miisaaniyadda ugu jirto ma ogola inay simanto oo laba marka Hargeysa laga fuliyo laba burca laga fuliyo sinaanta dadku ma ogola dawladdu ma ogola ilaa sinaan la helana dadku way kala tegayaan si aawadeed ee dawladdu ma joogto in la xisaabtami lahay baarlamaankiina ma joogo ilaa ma inuu iskaga xiqnay inagu marka anagu waxaan leenahay marka dambe nimankana la keeno baarlamaanka duuduubka lagu ansixinayo hal xisaabtamo miisaaniyadda dambe haddaanay maamul daadejinahayn hal inaga joojiyo waayo wasaaraddu walba inay samaysatay inuu baahanay sida aawadeed wasiir halka ku soo qortay buug yar oo deetana qaatay ee dalka uu kala tagay waanu kala waxay siyaad barnaamij meedan soo gaarin badidiin deeqaadka imika hadal hayo professor halka rafiyuga lagu cashuur jirqaadka wadada ka wadheeru ka soo gali jir dibro qaadkeeda iyada lahayd raashika iyo alaabta dhismee burca la keenay lagu iibinay cashuurteeda hardboardka inaga lahayn deemika malihin kii aynu dhoofinayna neefka ariga lacagta dawladdu ka qaato markii in cigaal sameeyay dalku dagaalba ku jiray waa run aamin ma ilahay maanta si dalku waa aamin neefka ariga burca lagu iibsay la dhoofinayo ee dawladdu ka qaadanaysa cashuurta yabaanka burca lagu shubo ariilaha ku shubo deeteynta hardboardka waynu qaadanayna marka sharciyadii dib loogu noqdo
iyo maamul daadejin bay u baahantay reer galbeedkuna way qaylaan si aan wax looga soo jarin bay qayliyaan dee reebaro ama qayliyo wax doonta ama aamusnaado oo sidii idaha oo dee iska fadhiya waayahay ilaa labada la isku welimaayeen horta arrinta ugu muhiimsan waxa weeye miisaaniyad marka laga hadlayo waxaynu ka hadlaynaa nolosha mujtamaca reer Soomaaliland ama ha goboleysnaadaan ama ha degmaysnaadaan waxa ay dawladnimadu ugu tala gashay noloshooda si guud marka hadafka ugu muhiimsan ee halkan loo joogayn waxa weeye horta wacyiga in la helo kow labana goboladan hadda aynu joognay bariga doodo badan baa ka taagan gobolada dalka iyo resource-ka dalka soo gala siday saameyn ugu kala leeyihiin iyo mid waliba sidoo muhiimad iyo relevance ugu arkayo dalka wuxuu ku daro marka ama transaction-ka guud ha ahaato ama waxa uu GDP-ga guud ku leeyahay goboladaasi waxay ku leeyihiin inay contribute garayaan ha noqotee waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan gobol walba iyo elite walba oo degmo jooga inay horta dhugtaan ay eegaan miisaaniyadda dalka iyo sida kharashaadka la samaynayo iyo meelaha ay ku baxayaan inay eegaan siday noloshooda ula xidhiidhana inay u fiirsadaan iyagu doorkay ku leeyihiin dalka waxay ku darayaan iyo waxa ka soo galaya miisaaniyaddan iyaga ugu tala gashay dawladnimada ugu tala gashay inay la cabiraan hadafka ugu weyn aynu ka leenahay budget analysis waa intaas weey marka anigu waxaan isleeyahay dood badan baa inta badan jirto oo oranaysa gobolada barigu dalka dhaqaalihiisa uunbay nuugaana iyo waxba ma contribute garayaan dood caynkaas inta badan jirto oo discourse hoota la suuqa jirto marka hadda waxa budget analysis ku leeyahay boqolkiiba 60 GDP-ga dalka wuxuu ku salaysan yahay xoolo nool marka laga hadlayo lacagta adaga dalka soo gashana boqolkiiba 85 kamidi wuxuu ka soo galaa xoolaha nool ee dhoofaya xoolaha nool ee dhoofayana boqolkiiba 75 kamid ahay waxay ka soo baxaan tog dheer sool iyo snack marka statistically ay sidaa tahay macnaheedu waxa weeye dalka dhaqaalihiisa dhan marka laga hadlayo trade balance-ka waxa lagu sheego dheelitirka ganacsiga marka laga hadlayo macnaheedu waxa weeyaan boqolkiiba 85 kamida waxa contribute gareeya $3 marka laga hadlayo hard currency-ga dalka soo gala oo ah waxa lagu dheelitiro sixir bar dalka ka taagan exchange rate-ka dalka magarasa foreign currency-ga iyo wixii la mid ah waxa contribute gareeya $3 marka doodo meesha ku jirta waxa weeye gobolada bariga horta way isku og yihiin inay muhiimadda intaa le ku leeyihiin dhaqaalaha dalka way isku yihiin hadday isku yihiin ma u diyaarsan yihiin inay doodaa difaacaan oo ay isu dhigaan inay dadka dhan muhiim u yihiin uma qalmaan in miisaaniyadda dalka iyo horumarka ay ka hadlayso iyo resource sida loo qaybinayo inay doorkoodii ama qaybtoodii inay helaan ma u diyaarsan yihiin marka waxaan isleeyahay u diyaar garowga hadda miisaaniyadan waa miisaaniyaddii 2025 xukuumadda hadda joogta ma samaynin waxa samaysay xukuumaddii hore laakiin 2026 baa la samayn doonaa gobolladani ma u diyaarsan yihiin inay horta faham u yeeshaan miisaaniyaddan iyo sabab iyo noloshooda saamaynta ku leedahay shaqo abuurka saamaynta ku leedahay adeegyada bulshada dadkana u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo infrastructure saamaynta ku leedahay isla markaana ma isu diyaarin karaan inay caqabaadka miisaaniyaddan ay noloshooda ku leedahay inay wajahaan oo tusaale ahaan oo kale hadda waxaa la yidhi way wasaaradaysantii tan labaadna waxa weeyaan mashaariicda lagu bixinayaa ma cadda ee qof baa go'aan ka gaadhaya meel fadhiya waa labada tusaale aan soo qaadanay caqabad ka jira tusaale ahaan ma isu diyaarin karaan gobolladani intay abaabulaan dadka matala politically elite-kooda maayirada iyo dadka waxgaradka intay sabaabulaan ma ku doodi karaan miisaaniyadda waa in la goboleeyo laga daayo in la wasaaradeeyo si aanu u garanno waxay gobollada iyada noloshada saamaynta ku leedahay si aanu u garanno marka wuxuu man uga wadaa tusaalahaas in loo diyaar garoobo miisaaniyaddan iyo nolosha dadka saamaynta ku leedahay in la isu diyaariyo la fahmo sida ay ula xidhiidho waanan ka baxay waan maasan
guud ahaan waxaan doonayaa inaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa noqo ka soo qaybgalayaasha dhammaan rag iyo dumarba madaxda mas'uuliyiinta iyo mudanta ay ku jiraan madaxdii hore gobolka iyo degmaduba halkaasaan doonayaa inaan ku soo koobo falanqayntii aad iyo aad baa u mahadsantihiin